daawadayaasha qiimaha leh waxaan halkan idin soo marnaynaa barnaamij aan ka diyaarinay qoys Soomaaliyeed oo dhibaato ay u geysteen dhalinyaro Danish ah oo ay ku jirto jinsi nacayb ama waxa loo yaqaano cunsuriyada. waxaan booqanay qoyska reer Cabdi Hiraad oo degan tuulo yar oo la yiraahdo Obek oo 25 kilomitir xagga bari ka xigta caasimadda saddexaad ee wadankan Denmark. daawasho wanaagsan. goor maqribkii ah ayaan ku beegmanay tuuladan yar ee la yiraahdo Obek. tuuladan ayaa waxaa degan 3 qoys oo Soomaali ah. qoysaskan oo ku nool cabsi joogto ah ayaa dhibka loo geysto maalinba maalinka ka dambaysa uu ka sii darayay. dhibaatooyinkan oo ka bilowday in qoysaska sanduuqyada boostada laga jabiyo marmarna looga sawiro calaamadda naasiga ayaa qaarna baabuurtii laga xoqay. intaas dhibaatada kuma ekaan waxaa dhacday in Axmed Nuur oo ah wiil Soomaaliyeed oo 17 jir ah ay reerku adeeg ugu dirsadeen dukaanka tuulada goorfiidkii ah. cabaar kadib ayaa waxaa soo laabtay wiilkii oo dhigaya. markaan ayaan ahayn markii u horeysay ee fal jinsi nacayb ah lagula kaco qoys Soomaaliyeed. sanad ka hor ayay ahayd markii fanaanka Soomaaliyeed Cabdullaahi Yuusuf Hanuuniye ay koox dhalinyaro ay ku weerareen gurigiisa. waxaa jiray qola habeenkii anagoo 4 saac anagoo joogna ayaa waxaana soo weeraray qola oo cunsuri ah. marka waxay soo ceyriyeen caruurtiiba aqalka soo galay way ka xireen. marka daaqadihii iyo albaabadii way jijibiyeen budad iyo wateen iyo biro. يعني ilmaha oo la soo dilay markay iskoolka ay aadan iyo meelaha la yiraahdo oo lagu hayo buluunta ay ku dhiilaan iyo meelaha kale oo lagu hayo banaanka ma bixi karaan. waxa la leeyahay qamaarka dhiga hataa wiilka weyn banaanka ma aadi karo iyo ma soo adeegi karo. waxa laga soo siibtay kabaha waxa la leeyahay nooga baxa wadanka. waxa tiin يعني doofaarka madow waxyaalo badan ay ku soo sameeyaan. يعني والول إي والبهار إلمي إسكول ما آذان قرية كوذا حريهن مركب ميل آذايان يعني كيسي إسكفيرنايان ويحبسنايان يعني مدة بس إنه آدي إلمي والبهار كوذا جوكنا ها أكو جرنا. oday Cabdi Hiraad oo ah oday Soomaaliyeed ayaa sheegay in hadda reerku sida uu u dhan yahay ay ka gaabsadeen inay dibadda u baxaan wixii ka dambeeya galabtii. yaasiin cusuble oo ku jira guddi ka socday jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Odense ayaa soo booqday reerka Cabdi Hiraad si ay arrintan murugada leh ula qaybsadaan reerkan iyo waliba in ay tusaan taageero. Cabdi Hiraad oo u warbixinaya guddiga ayaa u sheegay xaaladda qoyska. adeer yaasiin haddii aan warbixinaan kaasi wiilkan dhaata dhaweyda u dambeysay waxyeeladu ay soo gaadhay. waxyeeladani waa tu muddo badan socotay. marna laga jabiyo bahalantada boostada laga bixiyo marba gurigan lagu soo weeraro. dhaarta dhaweyto haddana dhacdadii ugu dambeysay tii waxay ahayd wiilka lagu waxyeelay nabarka lagu gaarsiiyay bay ahayd. dhibaatadaasina 3 qoys baan nahay oo ku deganahay. waa dhibaato kulliganana wada kulmisay oo aanu aad iyo aad ugu dhibanahay. waxaase gacan naga siiyey oo aad noo kaalmeeyey qolada bilayska ahayd iyo nin meesha joogay oo isagu shacab ahaa oo wiilka soo qaaday. wiilka oo nabarkii ku yaalo oo dhiig ka daadanayo. dad ka xunina wuu jiraa. dad cusureyna oo aan dan u galaynin wuu jiraa. laakiin waxaa badan dadka wanaagga jecel baa jira yaano oo Danish. marka sidaa awgeed waxaanu ogeysiinaynaa oo odayaashan u sheegaynaa. odayaashuna hadday yihiin dadka madaxdiisii iyo hogaamiyayaashoodii samadoonka ay yihiin dadka waxgaradka ee Daniska ama ka tirsan kamunaha ama odayaasha kale ee magaalada in xaaladaas wax laga qabto oo sida ugu degan loo dajiyo wiilkana xaaladiisa hoos loogu dayo. intaas ay ka kooban tahay. Axmed Nuur oo ah wiilka uu dhibka soo gaaray ayaan weydiinay sida ay wax u dhaceen. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga horta markii guriga ka baxay marka
dukaankan u jeeday dukaanka markaa u jeeday sheelka meel ee sheel dhaho adiga ay taagnaayeen kadib aniga dukaanka markaan aaday waan soo laabtay markii hore qamre igu tuureen lama hadlin xaafadan iska meesh waxaan aaday dukaanka waan soo laabtay markaan soo laabtay jidka ii galeen markaasay adiga afar ay ahayn igu imaadeen marka igu imaadeen ay waxay dhaheen baaga camal adiga waa taqaanaa baaga wax laga wada bes kadib mid baa kuleetiga igu dhagay anigana bacaan gacanta ka hay gacanta kale ta anigana kula dhagay markaas ii wareejiyay meel ugu tuuray markuu meel ugu tuuray موبيل أنا لسه بحاول حدا بوليس كواعي هذه موبيل ما هستوي ده ويقول صلابتي بس مركز فيرك يقول أفتى مركو يقول أفتى أنا نجيس أبودي شركة كلا أوكي كدبنا إن ما حد سميسه ما اللي حررت بوليسك بوليسك جروج مركا إما ننا ساق هذه دانش مركا جروج مركو كان أنا بوليسك وعي بوليسك إما هذه صور إيجا قادين waxay dhaheen isbitaalka tag sawirkaas oo adiga sawir kaleeto oo cadeynaya in adiga wax lagu dhufto mise dhaawac meeshan inuu ka gaar ilkaha way dhahay adiga meesha la tagay markaas waxaa sidoo kale aan wareysi la yeelanay guddigii boqoshada ugu yimid qoyskan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu u nimid familka la dhibaateeyay oo ay dhibaatada ku gaartay magaalada yar ay ku degan yihiin afarta qoys ayaan u nimid inaan soo booqano oo wax ka wareysano dhibaatooyinkooda siday wax u gaareen iyo in mataqaana ay hado dhaawac culus jiro ka Soomaali ahaan anagoo ka nimid magaalada weyn ee Oodans marmar waa iska dhacdaa magaalooyinka yar waa laga helaa dad iska naceebsi ku jira ajaanib marka way iska dhici kartaa horena waan u aragnay bari hadda muddo cabaar laga joogo dhibaatooyin yar oo saan oo kala magaalo yar oo ku taalo North Zealand laakiin waa wax nidaamka ama dawladda ay xalin doonaan marka hore waan soo aragnay laakiin dib weyn ma jiro runtii ujeedada maanta meesha u nimid waxay ahayd in aan soo booqno qoyska dhibaatada ku dhacday oo dareensiino in aan maartay arintan ayada kala safanahay oo si aan u siino macnaha inaan u tusin inaan walaal garab taagan runtii waxaan kula talin lahay mar walba dhibaato ku dhacdo maartay inay la xiriiraan booliska ama intiisan dhibaatada ku dhicin haday dareemaan in dhibaato jirto inay isla markiiba gaarsiiyaan booliska intiisan dhibaatada dhicin hadii u dhamaatay 3 sano maartay meesha lagu khasbay inay degnaadaan markay u dhamaatana inay walaalahooda Soomaaliyeed oo degan magaalada Oodans oo magaalo weyna inay u yimaadaan waayo tuuladan dhibaato iyo kaliya kala soo waajihi karto marka inay ka soo guuraan ayaan kula talin lahaa munaasabada meesha maanta oo waxayd inaan soo booqano Xaaji Cabdi iyo qoyskiisa munaasabada koowaad waa Xaaji Cabdi naftiisana xanuunsan buu ahaa oday ah oo muddo badan jirnaa oo nin Soomaali ah odayaasha Soomaali kamid ah mar labaadkana waxa Xaaji Cabdi wiilkiisa oo la dilay oo niman cunsuriyaal ah oo niman Danish ah cunsuriyaal ay ku goobteen oo dileen anagoo markaa masalayna dadka Soomaalida oo gobolka Fuun gaar ahaan magaalada Oodans ayaan waxaan isna bar soo booqdo oo walaalihiin oo dhibaatada gaartay xagga caafimaadka iyo xagga cunsuriyada labadaba marka Ilaahay ma hadii sadar harkii waladan yahay wax dhibaato ma qabaan arintiina maxkamad bay jirtaa wiilka odayga caafimaadkiisa waa fiican yahay waxaan u rajaynaynaa odayga wiilka bana Ilaahay inuu maartay xagga caafimaadka iyo xagga dhibaatada kale Ilaahay inuu fududeeyo